السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalaha waan idin salaamayaa meel kastoo dunida daafiyada kaga sugantihiin soo dhawaada baan idin leeyahay. waxaan idin rajeynayaa caafimaad bashbash iyo barwaaqo aad iyo aadna waan idinku mahadcelinayaa. waan idin salaamayaa, waan idin soo ducaynayaa, mar walbana waan idin duceeyaa. dhammaanba islaamka oo dhan waa inaynu maaragtay isku wada ducayno oo inagoo kala maqan isu ducayno. ilaahay hayno aqbalo ducada wanaagsan aynu isu ducaynayno insha allah bidmillaahi kariim. shaydaanka iyo sharkana ilaahay haynaga qabto. walaalahay waad baan idin salaamayaa meel kastoo dunida daafiheeda kaga sugan tihiin. dhalinyaro iyo waayeelba waan salaamaya, dhalinyaradayda waan salaamaya. waayeelka layskuma cadeeyo bahasha wadaas ka kacdiyo da-da iyo wda iyo d-daba layskuma cadeeyo da iyo waayeel. iyagana hablaha iyaga qiimaha iyo qaayaha badan leh jilba culusta miyaan idhahdaa. iyagana waan salaamayaa dhammaan kaftan weeye intaasi. aad iyo aad baan idin salaamayaa, aad baan idin soo dhaweynayaa. salaanka bacdi qiso yar baan maanta inoo hayaa oo kooban run ahaantii. qisada tani waxay leedahay wiil iyo gabadh ayay ku dhacday. dee dabcan soomaaliya de micid kale hadda waa soomaaliyune oo soomaali maxamed ah. soomaali maxamed ah. inan iyo inan baa sheekaystay. labaduba jilba culus bay ahaayeen. inanta jilba culus bay ahayd, single mother bay ahayd. inankuna jilba culus buu isagu laftarkiisu ahaa, iska single father buu ahaa. maxay ahayday ayuu isaguna ahaa. inantuna gabadhuna jilba culus bay ahayd. laba jilba culus oo bal sheekaystay oo jecel dhexdooda ka dhacay. ilaahay diintaada u gargaar. maxaa ka soo socda baraka iyo khayr allow ka yeel. almuhiim inankii inanta way sheekaysteen muddo dheer bay sheekaysanayeen. aada u dheer bay sheekaysanayeen. inantu run ahaantii waa la haysay inanka, isaguna waa la hayay inanta, waa la isla hayay. labada ruuxo waa isla hayeen. siiba hadii jaraale gabdhaheenu way xishoodaan. ilaahay xishood inugu beeray baa iska jira. oo maaragtay adhoona dumarka islaamka o dhan ku jiro de kulli dumarka soomaaliyeed ba horta waan ku arkay xishoodkaas. hadday dee ma faranfardeeyaan oo dee ragga ma baacsadaan oo kama horeeyaan, isagii wax walba xaggiisii ka sugaysayo saxeexa iyo suulkaba xaggiisii ka sugaysa. marka waxay tiri dee run ahaantii waanu isjeclayn, anna waan jeclaa, isna way jeclaa. guur baanu ku heshiinay, xalaala ayaanu ku heshiinay. maxay ahayday guurkaas xalaasha inaanu dee isguursano markaana dee aanu maadaama isna dee baggage sida xambaarsan yahay anaan baggage xambaarsanahay. aanu dee maaragtay aanu markaa dee qorsheynayno, aanu qorsheyno dee sidii alkii aanu degi lahayn iyo futureka sidaan iskula degi lahayn aynoo diyaarsanayd. hase yeeshee bay tiri anigu aan ka webinayay oo maaragtay aan lahaa dee adigoo baggagekan xambaarsan culays kale ma qaadi kartid, ninkana waa jeceshahay. isagu laakiin dee inaan ragan weeyaano wax walba marka hore waa saxeex, laakiin hadhowtee dee arrintu yaa dhekada qabsanaysa oo maaragtay arrintu cuslaanaysa. marka waxay tirsan in badan baanu sheekeysanaynay, aad baanu isku maaragtay dee aanan dee dhexgalkii ma aha dhexgalka kale ahaa, laakiin dhexgal dee xuduud lahoo dad isla hadlayo telefoonka isku dirayo haddii dee loo baahdo marmar dee suuqa publica dadkooda joogaan isku raacayo. laakiin dee dad telefoonka iskaga warqabo isla sheekaysto is-ogo iska warhayo. habeen haddii moodan yihiin habeenka labaad uu maaragtay soo wacayo ayadoo ay wacayso tagaska dee iyo faraawilada iyo dee isla garanayadii o dhan waa garan kardhaane. waxay tiri dee saasaanu isu dhaafsano. jacayl dhiigu da-ahayo bay tiri ayaa goobta iyadaa ka dhacay. ka dhaco ma xumaba jacaylku ma xume. waxay tiri dee wax kasta oo muddo socda waa lasoo afjaraa sax. muddo maadaamaanu sheekeysanaynay an waxaan rabay inaan maaragtay aan iska soo afjaro oon sheekada iska dhameeyo oo haddii aan laba idmaayo aan soo gabagabeeyo soo khatimo dee ama aanu isguursano oo dee reer dee aanu noqono abaanu dee haddaanu doonno iska kala dhuumane, ama aanu dee kala dee hawl yareysno isna suuqiisa hore usii galo dee haasaawihiisa furfurto, anna dee aan suuqayga hore usii galo oo maaragtay haasaawahayga furfurto. ayaan maxay tiri dee waxay tiri ayaan dee rabay. inankani waxay tiri sheekadiisu waa alf leyl waleyl, maba go-aysaba haba yaraatee whatsoever, maba soo dhammaanayso. waa ha socoto waan ku jecelahay, waan ku guursanaya, waan ku jecelahay, waan ku guursanaya. kaaga darana waxoogaa waxay tiri yara bakhayl buu ahaa, gacan adag, aada u gacan adag. aan aqoon saasa garasho dheeraado saasa aan lahayno
gabadha dee hadiyadeeyo gabadha maxaad u baahan tahay dhahayo dee adigu haba ka qaadan bayba tiriyade laakiin dee may tiri baa wax walba maaragtay ka qiimo badan waxay tiri walaashaasi markaa anigoo balba khaylnimadayba iskala dhutinayo le ninkan waana jeceshahayo dee qalbiga waa raacsan yahay bakhaylnimadana dee saad ku geli doonto allaahu aclam ilaahay baa yaqaana maxaad laba talo dhexdu taaganahay ayaa waxaaba ii raacay bay tiri de markaan ku dhahdo waa dee naga soo gabagabaynayahow maaragtay jacaylkan dee sheekadan aynu soo gabagabaynay dee halkuu isagu iga odhan lahaa ila isagaaninahe aan sheekada soo gabagabayno sheekada soo maaragtay deeran yahay aynu isku soo dubaridno oo dee aynu soo afjarno oo aan reerkiini la hadlo oo aan maaragtay dee halkaa aan dee nin iyo oday iyo islaantiisa aan noqono haba sheegin bay tiri sanadba sanad buu ku amahanaya sanadba sanad buu ku amahanaya sanad buu ku amahanaya bilba bil buu ku amahanaya bilba bil buu ku amahanaya qayayaabay anigu iyo jacaylkaagu qaahiro bil muqad buu guli waan yaabay bay tiri waana makaagay waxaa siyaba dhibade arrintan maxay tahay talo ninkan muxuu u daleeyahay marka waxaan dareemay inankani bay tiri in aanu maaragtay u lahayn aanu maaragtay aanu guur iga rabin iyo rug aan wada dugno iyo rays aan wada dugno inaanu iga rabin baan dareemay bay tiri waayo bay tiri dee dhowr sanadood oo weyn baanu sheekaysanayna bay tiri intaana anigu mar walba diyaar baan iska ahaa qalbiyan iyo maskaxiyan iyo aqal ahaanba diyaar baan iskaga ahaa inkastaan dee rabin inuu aqalkayga yimaado oo dee aanu nolosha si kale u maarayn lahayn diyaar baan dee iskaga ahaayo dee wax qarsoodiya anu ma baan rabin bay tiri laakiin dee inaan reerkayga u sheego carruurteeda u sheego maaragtay aan idhahdo dee waa ninkaasaan isguursanaynaa laakiin dee mahan ma imanayo المهم waxay tiri sheekadu sidii u soconaysay maalintii dambe go'aan baan gaadhay go'aankaas waxaan u diray waxaan idhi dasana kuma anfacayso waan soo fadhiisiiyey bay tiri waxaan ku wareeyahay niyahow dee maxaa tala ah saynu waxa yeelaa maxaynu samaynaa halkaynu dee ma sidan baynu sheekada u wadaynaa maadun baan kuu sheekaynayaa dee waa yahay bay tiri markaa ma waxaan noqday entertainmentkaagii qofkii ku entertain garaynayay miyaa noqday bay tiri maxaad dee waxaan siriun dee malaa wuxuuba kaa dhigtayba ninkani muufigu daawado ma entertainmentkiisaa tahay ma isagaad maaweelisaa waayo dee tala kastoo la qaato dee ama go-aan kastoo la qaato dee waxaa laga gaadhaa maaragtay qaraar baa laga gaadhaa dee ama way ilaahay dee qadartiisu waa milo haddii dee aadna calaf isku lahayn isguursan maysaan haddaad calaf isku leediin ood isguursanaysaan laakiin dee qaraar iyo go-aan baa meel la dhigto dee xilligaa dheedkaa iyo dheedkaas المهم waxaan dareemay bay tiri marka anigu ninkan inaan maaweeliyo u ahay waqtiga dhaafiyo uu dee igu shaqaysto ilaa qofka si kasta la iskugu shaqaystaaye maaha inaad qofka dee si kale maaragtay la isugu shaqaystee si kasta la isugu shaqaystaa waayo qofkani markuu shaqada kasoo baxo haddaad dee maanta o dhan u sheekeynaysid waraabayaal iyo libaaxyo iyo bisado iyo jiiris bacsan ayaad uga sheekeynaysid dee shaqaalaad u tahay oo adiga waqtigii dhaafinaya dabeetna waxaan inan yahay intaan dee maaragtay waqtigan iska soconaya taaguma haysidi ilaa adigu ma tihid muufigii la daawanayay ama dee sinimowgii la gelayay ma tihide arrintan iska soo afjar waxay tiri waxaan kuli walaal waxaan doonaya arrintan inaan soo afjarro halkii isaga laga rabay inuu yidhaahdo naadee waxaan rabaa inan yahay inaan arrintan soo afjarro maxaad dee tala ah maxaad yeelaysaa walaal dee go-aan isi anigiiba waxay tiri intaan soonayihii xirtay koloriya aan raba arrintan inaan iska soo afjarno gabi ahaanteedba inaan iska soo afjarno oon soo khulaasayno oo halkaa maaragtay aynu dee walaal dee ama aynu dee dad isku tirsan noqono dee ama dadkaa tirsan noqono waa run wallaahi buu yidhi waa si fiican weeyaan aad iyo aad wax u fiican weeyaan laakiin maxay ahayday aniguba diyaar baan ahay aniguba in dhaweyd waan rabay inaan ku weydiiyo markaa bal aniga hawle igaga yara kala daadsan yihiine heedhaday bal yaa dee waqti yar isi waxay tiri adigu waqtigii ayaan siiyey waqtigii markii aan siiyey ayaa haddana dee waqtigii haddana siiyey muddaa kasoo warisay sheekadu waa alfi leyl wala sidii bay socota waayahay war dee maxaa dhacay haye aniguna diyaar baan ahay kor haddaad diyaar tahay ana diyaar baan ahay laakiin maxay ahayday ma doonayo inaad reerkiina u sheegtid ma doonayo dee gabadh weyn baa tahay ana nin weyn baan ahay sheegsheegu wax sheegsheegu ma ficine inan yahay wax sheegsheegu ma ficine alla ilaahu diintaad u gargaan wax sheegsheegu ma ficine haddii aa laba idma hayo waxaan rabaa inaynu dee maxayday wadaad u yeedhano aan maxayday wadaadkeena ayar aynu dhab ka siisano
isla hululano aqalkeena adigu intayn wadaadkaa soo qabsano waxay tiri daanu waxaan sugayay cadar iyo carfi iyo udgoon iyo uusi iyo maxay ahayd dee nin gabadh dee guurku ka muuqdo oo dee ninkani dee uu kharash geliyo ileen shaqadu bilaash maaha oo bariiska bilaash ugu karin maaye inuu kharash geliyaan rabay bay tiri dee ninku jeebka baadho oo bangiga ku noqdo oo yidhaahdo dee yaa mar haddii dee go-aankii aynu hadalkii dee muddada dheer aynu soo wadnay aynu soo afjaray dee kuuskaa dhabdhe kuuskan kale dhabdhe kuuskan kale dhabdhe kuraasada bedel sariiraha ciyaalka bedel kan teena bedel adduunka waxaa buu yidhi naa dhegeyso waa runtaa si wanaagsan weeyaan waynu soo afjaraynaa arrintaa iyada waynu soo gabagabaynaynaa laakiin waxaan kuu sheegayaa shiikh baynu yeedhanaynaa odayro bagastaaniya ama maxay ahayd bengooliya shiikhyadaas maaragtay masaajidada jooga ayaynu yeedhanaynaa dhegdhegaati intaa yar baynu maxay ahayd dee iska dallaac bilaashkaa yar baynu samaysanaynaa maxay ahayday halkaasaynu gaw iskaga siinaynaa haddaynu isxalaalisano maxaa doonaysaa dee ee kale qayayaabay bay tiri waan qayayaabo waan qoostay wariyaahay maka dhacad cabtaaban hoosta ka dhin anigu miyo waa shaarada ka bogsaday waxay tiri markaan arkay ninkan inaanay ciridaan arkayo ilka kasoo muuqanin ayaan idnayahay fadhi kuma soo gelini kii waaye ninkan iska artadabay soo dee ka maaragtay shaqo ka qabo waxay tiri de markaan arkay inaanu sheekadan ayna uuna bedelaynin nin gacan adag nin doonaya inuu dhukuso nin doonaya inuu bilaash ugu soo galo dee bal ma gabadh la guursado bilaash lagu guursaday marka jiray qiyaamihii baa taagan inkasta dee iminka iska sheekadaas iska jirto haddana dee qof waliba la xawalo shililkaas dhigtaa lagu qala gabadh waliba dee halkaas dhigtuun baa lagu qala hadduu dee rabto in bilaash lagu guursadana waa lagu guursan hadday rabto in laga bixiyo lacagna dee waa laga bixin waayo qofka qiimahaad isku yeesho haddaadan adigu isqiimeyn qofkani kumaba qiimeynayo totalminto waa halka talyaaniga adiga kuma qiimeynayo laakiin horta waa in adigu isqiimayso waxay tiri waxaa igu soo dhacay ninka ma la dagaalanta ninka macayda ninka maxaad kaga argoosata waqtigaagii uu ashaahada loo ugu dhigay uu intaasoo dhan haasaawaha dhegta telefoonka kugu dhegii ku qiiqayeen ku qayliyeen ee habeenada qaar waxay tiri dee dhegihiisa iyo gacantaan ugu bedelay markii dambena aan haddii laba idma hayo aan maxay ahayday aan goostay aan markii dambe waxay tiri intaan dee kharash isgeliyey soo iibsaday bahalkan dee dhegaha headphonekan dhegaha wirelesska aan dee leweelkii baan xalaya gurigan ka shaqada carruurtii dhex joogaayo waa kan waxay tiri ninkii saa kuu galay akoonkaaga xoqa xitaa ninka maxaad ku samaysaa shahaada loo xogo dhig adigu waxay tiri markii dambe laba ragcadood salaadan sunnah baan iska tukaday waxaan ninka shirkiisa hadduu shir la soo guuxayeen waabad u jeedaa shir baa la soo guuxayaa ilaahay wadan kaa magan galay haddii khayrka maba soo muuqdee khayrkiisa iyo shirkiisaba ilaahay wadan kaa magan galay waxay tiri baloog habeenkii baan u khalaaweeyey bay tiri waan u khalaaweeyey kolkaan u khalaaweeyey bay tiri baan baloog iyo dhiliid iyo waxay tiri iskugu daray wax badan oo la garanayn meel kasta waxaan ka saaray bay tiri dhiliid iyo baloog maxaan ku jirayaa bay tiri undee jacayl gaajoonaya oo maxay ahaydee oo dee hadduu doono bensalka ku haya oo iska jacayl fakhriya adigu bimacnaa kelima iska fakhriyoobay waayo qofku marka hore labada qof marka hore haddii ay waxay ku heshiiyeen horta weeyaan kharashka iyo lacagta ilaahay baa bixiya laakiin qofka waxaad haysato waa lala wadaagaa kol haddaad wax haysato wuxuu doonaba ha noqdee waa lala wadaagaa ilaahay idankii maad $100 haysatid haddii aad nin tahay weliba specially ood nin tahay oo aad gabadh guursanaysid waa lala wadaagaa waa fiican tahay waxaysasiisku waa fiican yahay qofku wuu kugu aaminayaa wuxuu leeyahay garashadaada xitaa cabiraysaa qofkan wax yar waxaa laga yaabaayo $20 gabadhaad u keento waxaa laga yaabaa inay garashadaada ku miisaanto haddaad iska soo maalin kasta shaah iska doonayso iska soo fadhi weyn tahay halkaas koob shaah lagu karinayo maalin walba dee waxa weeyaan arrintu waxa weeyaan dee sharafi dhimatay garashadaada ay cabiraysaa inay 0.0 tahay marka nin yahow iyo niman yahowba waxaan idin leeyahay yaa hablaha waqtiga ha ka qaadinina hablahana waxaan leeyahay idinkuna maxay ahayd yaa garasho dheer yeesha oo markaad aragtaan inay kan inuu shaahuun doonayo in loo kariyo iska soo socdo uun waxaad tidhahdaa niyo waqtiga ha iga qaadani carruurtaydan yaa maalgelinayahay lacagtan adiga kugu maalgelinayo carruurtaydan ku maalgashanayahay iska sii soco meelaha iska sii warwareeg markaa qisada yare shoodka ayay walaashaas inoo soo gudbisay maxay ahayd waana qaadasho run ahaantii raggana waxay siinaysaa yacni
dee maaragtay waxay siinaysaa dee way u sheegaysaa ay leedahay yacni niyahow garashada ballaadhi gabadhana waxay leedahay shaaha badanaad karinayso joojiyo sheekada telefoonka jooji bay gabdhahana leedahay insha allah intaynu mar labaad hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh